شيء واستعمال جري نبينا محمد نبت قليو إن حريص كوركي ساعة أو إن مدة لكيدنا يي أو إلا يهد الحياة سيعنو قد كل مقال كان ولا روحنا قاعد سنة أنا اللايك صارت مقال كان شير قريسو صاحبه بدنا وقارس وكلنا تقصو بيرتبيج كان عبد الكريم على هذا المسند المدن شيء واستعمال جري صوبناها نبينا محمد نبت قليو إن حريص كوركي ساعة أو وقت دير لكيدنا يي فعبا فعكلا وكسو قاري kun iyo 400 oo sano kahor in muddo ahna la kaydinayay ayay dad badan u daawasho tagaan si ay u arkaan shayadii uu isticmaali jiray suubanaha nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee kuwaasi oo isugu jira dhar uu xiran jiray sida la sheegay nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee kaba uu gashay jiray sidoo kale faraantiga uu xiran jiray sida la sheegay nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee sidoo kalena ay sheegaan in agabkaasi uu sax yahay sidoo kalena uu isticmaali jiray suubanaha nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee sida ay sheegaan dowladaha gacanta ku haya oo agabka ugu badan ay hadda gacanta ku hayso dowladda Sacuudiga iyo sidoo kale Pakistan iyo Malaysia iyo wadamo kale oo ah wadamada Islaamka iyo kuwa Carabta wadamada ayaa sidoo kale waxa qayb ka ah gacanta ku haya shayadii isticmaali jiray nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee wadanka Turkiga waxayna hayaan agabyo kala duwan oo uu qaaday jiray ama xiran jiray suubanaha nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee waxaana inta badan ay yaalaan agabyadaasi kala duwan madaxafyo waaweyn oo dadku tagaan iyagoo shayadaasi kala duwan lagu xafido dhalooyin iyo waxyaabo kale si aysan dadku u qaadan iyadoo aan loo ogolayn dadku in ay qaataan iska dhaafe xitaa in ay taabtaan agabkaasi maadaama laga cabsi qabo in agabkaasi ay burburaan shayada dadka laga ilaaliyo shayada aadka loo ilaaliyo isla markaana la hayo waxaa ka mid ah khamiiskii uu xiran jiray sida la sheegay nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee oo in muddo la xafidayay dadkuna ay inta badan u daawasho tagaan sidoo kale ashyaada la hayo waxaa qayb ka ah koofi uu qaaday jiray nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyo sidoo kale kaba la sheegay inay yihiin kabihii uu xiran jiray suubanaha nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee shayada ugu badan ee ilaa iyo hadda la hayo 1200 oo sanona la xafidayay waxaa ka mid ah kabaha nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee seefo iyo agab kale oo xilliga dagaalka qaaday jiray faraantiga uu gashan jiray iyo sidoo kale agabyo kale tintii nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee go iyo imaamad nabigu uu qaaday jiray sallallahu alayhi wasallam tusbixii nabi Muhammad iyo shay kale oo badan waxaana goobaha ama madxafyada ay yaalaan agabyadaasi u daawasho taga inta badan dad badan oo muslimiin ah kuwaasi oo doonaya in ay mar uun arkaan shay uu isticmaali jiray ama uu xiran jiray nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما